daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan TV-ga caalamiga ee Royal TV Studio uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Haatan waxaad ku soo dhawaataan war goordhawina soo gaaray. kulankan maanta magaalada Muqdisho ee ku yeesheen guddiga dastuurka labada aqal iyo guddiga dastuurka madaxa bannaan ayaa ujeedkiisu hayso xog wareysi labada guddi baarlamaanka ka wakiil ah hawlaha hadda wajigan cusub la qabanayo iyo halka ay tahay in uu ka bilaabo guddiga madaxa bannaan marka fadhigan maantana waxaa looga arrinsanayay sidii la isla jaanqaadi lahaa oo hawlgalkaasi uu ku bilaami lahaa si aad iyo aad u wanaagsan ayuuna ugu dambeyntii gudoomiyaha dastuurka labada aqal Cabdi Qaybdiid ayaa soo gabagabeeyay kulanka annagoo ah sida walaalkay barso afrax uu sheegay labadii guddi ee ahaa guddigii baarlamaanka la socodka iyo dib u eegista arrimaha dastuurka labada aqal ee baarlamaanka ka koobnaa iyo guddigii muddada dhowrka sanaa jiray ee ahaa guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo hirgelinta arrimaha dastuurka labadaas guddi oo aniga iyo aan kala hogaaminaynay professor afrax oo ah ayaa maanta markii koowaad ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan isku nimaadno kadib markii uu soo dhismay guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee labada gole iyo guddoonkoodii iyo hawshii markay soo dhisantay ayaa ahaa maanta maalintii koowaad oo la isku yimaado guddigan runtii waxaa farax gaara aniga iyo guddiga ka socda labada aqal dib u eegista iyo hirgelinta arrimaha dastuurka in walaalaheen muddo dheer soo shaqaynayay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo hirgelinta arrimaha dastuurka inay maantay ayagoo intaas soo shaqaynayay macluumaadkoodii iyo waayo aragnimadii iyo wixii muddadaas ay la soo kulmeen inay maantay ay halkan ka bilaabatay inay muxuu ahaa annagana na siiyaan akhbaar buuxda iyo waddada uu ogol yahay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya sidii lagu wada shaqayn lahaa labadan guddi waa laba guddi oo mataana ah midkoodna keligii ma shaqayn karo labadoodu waa iskaabayaan guddiga marka madaxa bannaani haddii uusan haysan guddiga ka socda la socodka iyo hirgelinta arrimaha federaalka ee baarlamaanka Soomaaliyeed uusan jirin keligiis ma dhaqaaqi karo